aad iyo aad waxaan halkaan tacsi tiiraanyada uga dirayaa qoyska iyo qaraabada ay ka baxeen labada waalid ee ayagu gacmahoodii sababsaday sidaas kale ilmaha masaakiinta ah ee markii aqaligi waalidkood shaqeyn waayay mucjisadu ku dhacday hooyadood iyo aabahood waayeen ayagana waxaan leeyahay ilaahay ha ilaaliyo hana koriyo runtii waxaan halkan ku sabadhigi doonaa shan qalad oo aabahaani uu galay intii uu noolaa iyo hal qalad ay hooyadu gashay iyo hal qalad ee bulshadu ay gashay sidaas oo kalena waxaan ku dari doonaa khalad ay galaan hooyooyinka Soomaaliyeed oo ay tahay inay iska ilaaliyaan wixii hadda ka dambeeya intaan khalad ah waxaan ka soo dhex saaraynaa ama aan ku dhex aragnay muuqaalka daawan doontaan anigu wiilkan iyo qoyskanba aqoon uma lihi balse qaladaadkan meesha aan ka helay waxay tahay fiidiyogan oo soconaya muddo ka yar 1 daqiiqo ayaan ka helay 7 khalad dhammaantoodna waa kuwa dadkoo dhan wada arki karaan haddaba khaladaydaasaan isula garanno aynu fiidiyoga daawanno khalad kastana aan dul istaagno محمود حاج موسى شنتي مي لوكري كوبي لاتنكي قدمتي هولن عاشا الله نحرسته ما تفهم الكيجي وحد شوقا حرقيسة أيام شوقنا دمان عروتي لاين تيريت هو يلا يا ربطين يكون نقطة هولن ما نقدر نسوي ما نقول قالوا ونقطة شيء لا يسوى بالبادي أنا وايد حدث سداني دين شيء ما أنا وحويا الحمد لله وطن كيجا يشوقا سيدنا نتهدى وسوق هذا وطن كيجا واسي معنا نقول هولن iyo qurbad dambe waxa weeyaan ma arki karayo ummadda Soomaaliyeedna waxaan kula iyo muslimiinta waxaan kula talinaynaa iska soo guuraan si aan carruurtooda iyaguna ugu wayn dhammaan familkina waa familkaygi inanta yar waa inantaydii waxa weeyaan Mawaahib Sabriin Maxamuud maanta waxaan doonayaa inaan noloshayda iska wato qolada ay gabadhu ka dhalatay oo aadan madooba oo habar jeclaa waxaan leeyahay wareegantiina iga qabta familkayga aniga maanta Hargeysa ayuu ii joogaa alxamdulillah ayaa taaganahay iyadana xaq iyo xuquuq waxay igu lahayd waa iga diyaar basaboorradaydiina iga keena anigu carruurtayda marnaba diyaar uma yihiin inay noqdaan yes aad iyo aad marka aabahan runtii waxaa muuqata in qorshuhu ahaa gabadha meydkeeda reerka uu ka dhaadhiciyay aan qaadno aan Soomaaliya ku soo duugno filin caynkaas ayuu horta reerka ku soo kaxeeyay waa imaadeen reerkii oo dhan gabadhii meydkeedii bay soo qaadeen Soomaaliya markay keeneen ku duugeen odayga wuxuu la soo kala baxay qorshihiisii ajantihiisa rasmiga ah aad iyo aad waxa marka haddii investigation sheekada lagu sameeyo waxa laga yaabaa xitaa odaygu si Soomaaliya loo tago fursad si uu helo ilmahan dhintay xitaa xasuurgala inuu asagu sabab u ahaa I don't know sidoo sabab ugu ahaa ay weydiinina wax suuragala waa wax suuragala maxaa yeelay hadda qoysku ayagii baa isdilayba ayagii baa isgubay marka dad ayaga isgubay ilmaha agtooda waxba kama aha waa dad shaydaan dhex galay shaydaanna ku hirgisayo marka aabaha khaladaadkiisa aan ku sii soconno محمود حاج موسى شنتي مي لوكري كوبي لاتنكي قدمتي هولن عاشا الله نحرسته ما تفهم الكيجي وحد شوقا حرقيسة أيام شوقنا دمان عروتي لاين تيريت هو يلا يا ربطين يكون نقطة هولن ما نقدر نسوي ما نقول قالوا ونقطة شيء لا يسوى بالبادي أنا وايد حدث سداني دين شيء ما أنا وحويا الحمد لله وطن كيجا يشوقا سيدنا نتهدى وسوق هذا وطن كيجا واسي معنا نقول هولن iyo qurbad dambe waxa weeyaan ma arki karayo ummadda Soomaaliyeedna waxaan kula iyo muslimiinta waxaan kula talinaynaa iska soo guuraan si aan carruurtooda iyaguna ugu wayn dhammaan familkina waa familkaygi inanta yar waa inantaydii waxa weeyaan Mawaahib Sabriin Maxamuud maanta waxaan doonayaa inaan noloshayda iska wato qolada ay gabadhu ka dhalatay oo aadan madooba oo habar jeclaa
waxaan leeyahay war inantiina iga qabta familkayga aniga maanta Hargeysa ayuu ii joogaa alxamdulillah ayaan taaganahay iyadana xaq iyo xuquuq waxay igu lahayd waa iga diyaar baasaboorradaydiina iga keena anigu carruurtayda marnaba diyaar uma yihiin inay noqdaan aad iyo aad wuxuu yiri gabadhan xuquuqdeedii meherkeedii waa iga diyaar reer hebelow soo gabadha cideedii sheegaya gabadhiina iga cishada ilmahaygina waa haystaa baasaboorradeedana ha ii keento waxa arrinka waxa aabahaas intuu noolaa u sameeyay waa khalad aad iyo aad u weyn gabadha ilmaha dhashay inuu yiraahdo halaga kaxaysto ciddii lahayday ciddii ay ka dhalatay baasaboorradeediina ha ii keento ilmahaygana ana haysanaya horta khiyaano uu ku sameeyay maxaa yeelay reerkan hadduu Holland joogi lahaa waxaan odaygu ma samayn kari lahayn odayga waa la xukumay lahaa waxa la dhihi lahaa haddaad reerka nacday bannaanka ka tag soona booqa marmar ilmahaaga waa soo booqan kartaa laakiin waxaan awoodda aan u isticmaalayo inuu ilmihii ka kaxaysto gabadhii keligeed uu rabo inuu diro taas waa Soomaaliya iyo xaaladdeeda gabdhaha markii la furo ilmaha laga reebto laakiin halkan cagsi baa ka jiro ah odayga naagta hadduu naco isaga unbaa iska tagaya hadda asagii baa maaragtay diyaar u ah inuu gabadha furo maadaama qorshihiisii u toosay gabadhii wuu caynaya wuxuu leeyahay su'aasha markii la isweydiinaya waxay tahay asaga qurbo ma rabo yiri muxuu baasaboorrada ku falayaa marka hadduu qurbihii rabin weli soo munaafaqnimo ma inuu weli baasaboorradii Holland raadinayo oo leeyahay baasaboorradana noo keen qurbihiina uu leeyahay dadkii ka soo guura anna uma socdo marka waa at the same time love and hate aan qaladka aabaha ku sii soconna intuu noolaa u galay ilaahay iga soo badbaadiyay aniga waa xidhan sidaan idin sheegay maantana waxa weeyaan alxamdulillah wadankayga ayaan joogaa sidaan inantayda u soo qaadan wadankayga ugu aasay ma aanan noqon Holland iyo qurbad dambe waxa weeyaan ma arki karayo ay gabadhu ka dhalatay oo aadan madooba waa barjala waxaan leeyahay war inantiina iga qabta familkayga aniga maanta Hargeysa ayuu ii joogaa alxamdulillah ayaan taaganahay iyadana xaq iyo xuquuq waxay igu lahayd waa iga diyaar baasaboorradaydiina iga keena anigu okay aabahan wuxuu leeyahay anigu diyaar uma ahay inaan noqdo baasaboorradeeda ha la ii keeno aabahan khaladaadka u galay waxa weeyaan Holland waa lagu xiray mar waa khalad ilmaha niyajab baa ka muuqday inaysan xaaladda ku faraxsanayn waa qalad uu galayo uu soo galay intuu noolaa gabadha uu qabo xaaska inuu furo ayuu rabaa isagoo weliba caayaya oo cayda ugu weyn waa inuu gabadha xuquuqdeedii iyo ilmaheedii oo dhan ka qaatay khiyaamay number 4 qaladka afraadna waxaa waaye inuu soo khiyaamay hadduu Holland ku furi lahaa haddii qofka uu naco meeshiisa isagoo jooga fur laakiin sababta uu Holland uga soo kaxeeyo u keenay halkan waa khiyaano iyo khalad u galay waay haddaba marka okay maamadan marka hal khalad ay gashay ayada hooyadan hal khalad oo waxay gashay aad iyo aad u weyn khaladka ay gashay maamadan waxaa weeye waa in ay soo raacday nin ay ogeyd inuu yahay aabba xanaaqsan aabba xun aabba lagu xiray Holland ayada darteed ilmaha dartiis aabba lagu xiray inay soo raacday ayada maamada khaladkeed ugu weyn ay gashay taas waay qofka noocaas ee lagu xiray Holland ee lagu xiray arrimo qoys ee ay ka dareemayso wax kasta inay soo raacdo khaladka ugu weyn ay gashay maamada taas waxaa la rabay ninkaas maalinkii la xiray hawsha hadayba xarigba gaartayba inay bannaanka kala maraan inay tiraahdo niyahow nagu kala wad xitaa haddaysan dhihin nagu kala wad waxay ahayd in aysan raacin isaga anoo og inay diiday balse ugu dambayntii uu arrin agaasimanoo mission ah uu maamadii dhexda ka istaajiyey oo yiri gabadha dhimatay Soomaaliya ku soo duugayna ilmaha haday dhintaan waa saqiir meesha joogaana la isaga duugaa balse
waa qorshe inuu gabadha soo kaxeeyo uu keeno halkaas meesha la yiraahdo magaceeda Hargeysa kadibna uu yiraahdo gabaray nuu kala kaxay meesha ilmahayga waa haystaa inuu yiraahdo qaladkaas ayada gashay haddaba qaladka markasta ay galaan bulshadu maxay tahay bulshadu waxay galaan markasta dadka caynkaas oo kala markay arkaan aabe la xiray arrimo qoys loo xiray aabe aan arkayno suu u yara xanuunsan yahay ama neef kurka ka baxayo ama waxa uu qasayo ma qaban yaqaanaan waxba uma sheeg yaqaanaan wiilkooda waa dirac waa nin balaayo ah gabadha xun ay leeyihiin waxa suuragal ah hadda gabadhaas dhimato miskiinta waxaa macquul inuu isagu rabay inuu gubo balse ay isla gubteen waa suuragal hadda dadku waxay leeyihiin gabadha ayada gubtay oo ayadana kadib isgubtay laakiin waxa laga yaabaa isagu inuu gubay oo kadibna ay isla gubteen wixii meel ay ku kala badbaadaan ay garan waayeen baa laga yaabaa ayada qof u garaabaya gabadha ma arkaysid qof la gabadha waa laga gardanaya arkimaysid dadkii oo dhan ninkii bay leeyihiin wuu saxan waa khaladka bulshadu galayso bulshadu waxay noqotay bulsho aan waxba ku samayn karin analyze waxba aan baari karin aan ka fakari karin ayay noqotay bulshadii waa khalad war qofkan khaladaadkiisa khaladka hadda fiiri khaladka qof kasta fahmi kara waxaa ka mid ah waay loo xiray waa inta keliya kugu filan inaad ogaatid ama aad isweydiisid ay tahay maxaa loo xiray aabbahan hadduu aabbo quman yahay maxaa loo xira yaa la xiraa qofkee baa la xiraa yaa sharciga ka cabsada oo ka fakada waxaa la yidhi sharciga waxaa ka baqa kuwa dembiyada gala waxaa la xiraa kii dembi gala hadda may fahante warwarku hadda ma ku dhaca hadda si fiican may fahante aad iyo aad inaad fahantay baan filayaa marka waxaan leenahay hooyadaas ilaahay ha u naxariisto masaakiintaas hooyada masaakiinta ah hooyooyinka Soomaaliyeedna waxaan leeyahay is ilaaliya yaan la idin khiyaamin arrinkan hooyooyin badan ay ku dhacday in inta la kaxeeyo oo sheekooyin lagu kaxeeyo qaarkood lagu kaxeeyo ilmahaagiiba aroos gal raba wiilkaagiiba aroos iyo gabadhaadii la aroosa inta lagu kaxeeyo ilmihii laga qaato tan hadda qof dhintay lagu sira gabadhii waa dhimatay kaala soo duugnay lagu sira marka is ilaaliya hooyooyin haddii aabbuhu xumaado banaanka ka mar aabbaha mar hadduu xumaado banaanka ka mar iska ilaali yuusu ku kaxaysan asaga keliga tago duu meel aadayo haddii aad qurbaha ku wareegaysaan ku wareeg waa haddii aabbuhu xun yahay ma aabbayaasha wanaagsan ma macnaheedu aabbo dhan ma aabbayaasha xun ka aad iyo aad videogan waxaan u malaynayaa halkaan aan ku soo koobaynaa haddii aad halkaan nala soo gaartay please YouTube channelkayga subscribe saar adoo mahadsan